Asalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago filim lagu magacaabo Koki vs Zombie. Fadlan intaan bilaabin filimka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saarto, gambaleelkana furato si aad ula socoto fiidiyowga dambe ee soo gelin doono. Daawasho wacan, iskana taxadira. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa meel dhismo ah. Waxaanu aragnaa qaar ka mid ah shaqaalaha oo shaqadooda ku qabanaya meel. Laba ka mid ah shaqaalaha dhismaha ayaa ogaaday qabooraha qarnigii 17aad ee Charles uu cambaareeyay. Dood kadib waxa ay go'aansadeen inay furaan albaabkii xidhnaa iyagoo raadinaya dahab iyo hanti. Way fureen oo gudaha u galeen. Waxayna ogaadeen in ay tahay meesha xabaal wadareed. Waxayna arkeen dad badan oo duug ah oo ku wareegsan. Isla markiiba waxa kacay zombie ku noolaa sanado badan ilaa haddana ku nool. Waxa mid ka mid ah soo weeraray zombie oo qaniinay. Saaxiibkiina waxa uu isku dayay in uu joojiyo zombiga, laakiin zombie ayaa si xun uga qaniinay wejiga, kaas oo dilay labadoodiiba. Hadda waxaynu aragnaa Terry iyo walaalkii ka yar Andy oo qorsheynaya inay dhacaan bangi si ay u badbaadiyaan guriga awowgood oo ay dumin rabaan hantiilayaal. Waxa ay go'aansadeen inay la kulmaan awowgii oo ay u wareegaan halkaas. Halkan waxaanu ku aragnaa awowgii Terry iyo walaalkii. Guriga uu ku nool yahay waxaa siisay dowladda, balse dadka qaar ayaa doonaya inay qabsadaan oo ay dhismo kale ka samaystaan halka gurigu uu ku yaalo, balse waa uu diiday. Kadib Terry iyo walaalkii ayaa yimid. Terry waxa uu u yeedhay awowgii, kadib waa uu xanaaqay oo riixay. Haddana waxaan aragnaa goobihii dhismaha oo shaqaale kale ay soo saareen 2 qof oo dhintay. Booliiskuna waxay xidheen goobtaas. David iyo walaalkii waxa ay dhex galeen gaadhiga, waxaana weheliyay naadirtid Katie, dambiile Davy iyo Mickey oo ahaan jiray askari hore, kaasoo haysta hub badan oo siiya iyaga. Markii ay soo galeen bangiga, waxa ay xidheen qalab ay ku rakaban yihiin shaqaalaha dhismuhu, sidaas darteed cidina ma garan karto. Marka hore waxa ay la kulmeen maareeyaha bangiga, laakiin maareeyaha bangigu wuu og yahay inay halkan u joogaan inay dhacaan bangiga. Maareeyaha bangiga ayaa taabtay button degdeg ah, booliiskana waa la ogeysiiyey. Miski ayaa ku qabsaday oo ka yidhi waqtiga ha iska luminin. Maamulaha bangigu waxa uu u kaxaystay wiilashii qolka labiska. Markii ay arkeen lacag badan, way naxeen oo si degdeg ah ayay boorsooyinkoodii ugu gurteen. Markii ay bangiga ka soo baxeen, booliiskii ayaa ku yidhi qoriga tuura oo dhulka fadhiista. Dabadeed Miski ayaa ka xanaaqay oo qorigiisii kala soo baxay oo rasaas ku furay booliiskii. Bangiga ayay ku soo noqdeen kadib. Mickey waxa uu ku qasbay kooxdii in ay kaxaystaan Emma iyo Keith oo ay afduub u haystaan si ay u baxsadaan. Markii ay ka baxeen bangiga, si kastaba ha ahaatee, waxa ay ogaadeen in booliiska iyo dad kale ay dileen dad badan oo zombie ah. Si degdeg ah ayay ugu carareen baabuurkii ay wateen, iyaga oo soo kaxaystay qof badbaaday in muddo ah kadib, kaasoo si degdeg ah u noqday zombie. Laakiin Mickey ayaa ku toogtay qorigiisii kana soo tuuray gaadhiga. Burcaddu waxa ay go'aansadeen inay meel aadaan oo ay ogaadaan waxa ka jira. Dhanka kale, waxaan aragnaa Ansis awowgii oo ku raaxaysanaya qoobka ciyaarka xaflad gurigiisa. Si lama filaan ah, zombie ayaa u soo gashay qolka oo soo weerartay meesha, waxayna dishay dadkii meesha joogay. Andy aabihii ayaa dilay zombie, dhammaantoodna way carareen si ay meel iskugu qariyaan. Kooxda Terry waxa ay yimaadeen bakhaar cidlo ah, halkaas oo ay ugu yimaadeen zombie aayar u socda. Mickey inta ay ku soo socotay ayuu toogtay, kadib way qaniintay, laakiin wax saameyn ah kuma yeelan. Katie ayaa u sheegtay Mickey in uu madaxa ka toogto sida uu u qaniinay zombigii. Mickey ayaa toogatay. Kadib Katie ayaa waxa ku hadhay zombiga afkiisii oo si adag ugu dheganayd qaxantiisa. Intii aanay tegin ka hor, waxa soo socota gabadh ilmo yar wadata, laakiin Mickey
ayaa ogaaday inay zoombi tahay. Markaas ayuu madaxa xabad kaga dhuftay. Mickey, ilmihii yaraa, ayuu kor u qabtay, kadibna waxa uu ogaaday inuu yahay zoombi, waxaana uu ka gooyay gidaarka isaga oo u tuuray sidii kubadda oo kale. Andy, awowgii, iyo dadka deegaanku waxa ay ku dhuunteen jikada, waxa ayna bilaabayaan in ay raadiyaan hab fudud oo ay ku baxsadaan, iyaga oo rumaysan in uu iman doonin qof badbaadiya. Isaga iyo Peggy waxa ay isweydaarsadeen ballanqaad ah in uu dilo midba midka kale haddii la qaniino, maadaama oo midkoodna uu rabin inuu noqdo zoombi. Halkan, Andy iyo walaalkii waxa ay qorsheynayeen inay aadaan gurigiisii hore, laakiin Mickey waxa uu ku fikiray inay rabaan inay sii haystaan dhammaan lacagtii la dhacay. Furihii gaadhiga ayuu ka dafay oo ka haystay labadii qof ee afduubka ahaa, laakiin intii ay jidka ku sii jireen ayaa zoombi ka soo horbaxay. Mickey ayaa qoorta ka jaray, labadii qof ee la socdayna way baqeen. Hamish waxa uu hurdaa beerta, isagoo aan ka warqabin dhacdooyinka dhacay. Ray ayaa u sheegay inuu tooso. Hamish ayaa istaagay oo u dhaqaaqay xagga iyo albaabka. Isaga oo u socda dhinaca iyo albaabka ayaa waxa uu ka dheereeyay zoombiga daba socda. Ray ayaa bannaanka u soo baxay oo dilay dhowr zombies ah oo Hamish guriga soo geliyay. Xaaladda Mickey si tartiib tartiib ah ayay uga sii daraysay. Dadkii uu soo afduubtayna waxay ku yidhaaheen, "Na sii daa si aan kuu caawinno oo aan kuu geyno isbitaalka." Laakiin Mickey ma uusan oggolaan iyaga. Wuxuu dhahay, "Waan fiicanahay." In yar kadib, Mickey waxa uu noqday zoombi, wuxuuna u socdaa inuu weeraro labada qof ee uu soo afduubtay. Markii ay kooxdiisu meesha yimaadeen, waxa ay arkeen xaaladda Mickey. Jidhkiisa ayaa sii xumaanayay. Andy, walaalkii, ayaa madaxa ka toogtay. Arrinkaas awgeed, xabaddu wax saameyn ah kumaysan yeelan. Terry ayaa bambaqamceed ku qarxiyay, waxaana uu badbaadiyay Emma iyo Cliff. Cliff ayaa soo qaatay qoriga Mickey oo u hanjabay kooxda. Andy waxa uu u sheegay Cliff in ay zombies ka soo socdaan gadaashiisa, laakiin taas ma uusan aaminin, oo zombieskii ayaa isla markiiba cunay. Xabad ayaa ka fakatay Cliff, taasoo saamaysay Davy, waa uuna dhintay. Kooxda inteeda kale way baxsatay, iyaga oo qorsheynaya inay aadaan gurigii howlgabka si ay u badbaadiyaan Ray. Terry ayaa qori siiyey Emma, isagoo u sheegay inay kulligood isu koox yihiin, wayna oggolaatay. Kooxdii dibadda ayay u soo wada baxeen oo waxa ay fuuleen gaadhigii, laakiin furihii ayay soo ilaaween. Andy iyo walaalkii ayaa dib ugu noqday furihii ka hor inta aanay dib u soo gaadhin. Katy ayaa waxa ay istaadhay baabuurkii. Emma ayaa waxa ay weydiinaysaa in ay jidka joojin karaan. Way istaageen si ay u raadiyaan walaasheed ka yar. Terry iyo Emma waxa ay aadeen guriga, laakiin walaasheed hadda waa zoombi. Emma waxa ay go'aansatay inaysan dilin haddii daawo loo heli karo. Kooxdu waxa ay go'aansadeen inay u baahan yihiin qoryo badan. Markaa Katy waxa ay siinaysaa fikrad ah inay aadaan meeshii uu Mickey ku kaydsan jiray qoryihiisa. Waxay fureen konteenarkii, wayna la yaabeen markay arkeen qoryo badan oo meesha ku kaydsan. Waxa ay sidoo kale raacaan baska labada dabaq ah ee Mickey, hubkiina gudaha ayay ku gurteen. Dhanka kale, gurigii hore, zoombigu waxa ay u dhow yihiin inay jabiyaan albaabka jikada. Ray waxa uu cadhoonayaa nafsadiisa maadaama uu u oggolaaday isaga iyo asxaabtiisu inay meeshaas ku xayirnaadaan, laakiin waxa ay rabaan dhammaantood inay dagaal u baxaan. Kooxda Terry iyo Andy waxa ay yimaadeen guriga howlgabka iyagoo wata baskii labada dabaq ahaa, halka Emma ay mashquulinayso zoombiga ku hareeraysan dhismaha si ay u galaan gudaha. Terry iyo Katy waxa ay si dhoomaaleysi ah uga soo galeen saqafka sare, halka uu Ray ku dhowaaday inuu geliyo tooriga isagoo u malaynayay zoombi. Ray waxa uu weydiiyey sida ay u baxsan doonaan, laakiin waxa ay tuseen bac weyn oo uu ka buuxo hub. Wuu ku farxay, qof walbana waxa uu qaatay hubkii uu doortay. Hadda
Andy walaalkii wuxuu qaatay bam-gacmeed oo uu ku qarxiyey qaar ka mid ah zoombiga, laakiin waxaa hadhay zoombi badan. Sidaa darteed, waxa uu qaataa seef si uu 3 hal mar u dilo. Dhammaan dadka kale waxa ay qaateen qoryaha oo waxa ay bilaabeen inay dagaalamaan si ay u dilaan zoombiyada oo aad u badan. Ay mid walba ka tooganayeen madaxa. Dhammaantood waxa ay ka soo baxeen guriga oo ay arkeen Emma oo ka mashquulinaysa zoombiyada. Waxa ay u timaadaa iyada oo wada baska. Dhammaantoodna baska ayay wada koraan. Laakiin Emma waxa ay u sheegtay Andy awowgii in ay dhaceen bangi. Awowgood ayaa canaantay labadoodaba oo markana waxa uu leeyahay, waan idin cafiyey maadaama aad badbaadiseen nafta dadka kale. Si kastaba ha ahaatee, intii ay ku jireen waddada, baskii ayaa ka xumaaday oo waxa ay kooxda ku qasbanaatay inay iskaga tagaan. Waxa ay heleen doon dalxiis oo ku taalla Dema, taasoo beegi wadi karto. Si kastaba ha ahaatee, doonta waxaa ku xidhan silsilad. Ray waxa uu go'aansaday in uu naftiisa u huro si uu u badbaadiyo kuwa kale. Waxa uu ka soo degaa doonta isagoo u sheegay ciyaalka uu awowga u yahay inay shaqo helaan oo ay sameeyaan wax naftooda anfaca. Waxa uu silsiladii ka furay doonta, laakiin waxa ka adkaatay zoombigii. Carruurtiisii ayaa ku soo yaacay zoombiga iyaga oo mid mid u dilaya. Ray si mucjiso ah ayuu u soo muuqday, lamana qaniinin, oo waxa uu bilaabay inuu qorigiisa ku dilo zoombiga. Waxa ay nadiifiyeen aagga, sidaas ayayna ku socdeen. Filimkuna intaas ayuu ku egyahay. Haddii aad ka heshay sida aan filimka u soo gudbino, subscribe saar oo ka mid noqo walaalaha qalbiga. Mahadsanid.